waxaan maanta isugu nimid annaga iyo gudoomiyaha gobolka iyo hay'adaha ka shaqeeya guud ahaan Jubbaland gaar ahaan gobolka Jubbada Hoose shirkaas oo ahayn shir caadi oo billaah ay isugu iman jireen hay'adaha iyo gobolka runtii shirkani wuxuu ku saabsan yahay wuxuu xambaarsan yahay laba arrimood arrinta ugu horeysa oo muhiimadda ama diiradda aan ku saarnay waxaa jira walaac ama cabsi laga qabo waxaan la yiraahdo elino ama fatahaad ama duufaano roobab laxaad loo ka dhici doona goboladan ama guud ahaan geeska Afrika East Africa taa cabsi laga qabo sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn ka hortag oo Soomaalidu waxa ku maamulada balaayo ka hortag belada ka daba tag male si aanan hadhow aanan u noqon kuwa ka shalaaya ayuu ku saabsanaa shirkani dhammaan hay'adaha internationalka iyo localka ah ama kuwa caalamiga ah iyo kuwa gudaha aba ka howlgala gobolka bariyahan waxaa jirta in dhammaan hay'aduhu ka howlgala gobolka Jubbada Hoose ay xoogga saareen inay ka shaqeeyaan meelo cayiman oo ugu weyn tahay degmada Badhaadhe degmada Kismaayo ee wuxuu badan tahay laakiin aan moodo degmooyinkii kale inaysan jirin awood xooggan oo kaga shaqeeyaan bal meelo kale oo degmooyinkii ka mid ah gobolka ay jirinba inay ka shaqeeyaan sida degmada Badhaadhe oo kale hay'aduhu runtii aad bay abukir ugu noqdeen ama ay ugu oroleeyeen in arrintaasi ay joogsato oo aysan noqonin mid go'doomisa ama deegaankii ka dhigta deegaan go'aansan oo waxba geli karin waxaan ayadana ugu baaqaynaa hay'adaha caalamiga iyo kuwa localka ah iyo dawladaha deeqda bixiyaba in deegaankaasi district Badhaadhe oo ilaa 43 tuulo ka kooban bulshadaasi inay tahay go'doon bulshadaasi inaysan haysanin wixii ahaa humanitariankii ama developmentkii ama haddii ay ku soo geliyahay wixii basic needska inaysan bulshadaasi haysanin reason waxaa looga dhigay waxaa ahayd ma jirto wax la yiraahdo security waxaan leenahay perceptionka noocaasi ama fikirka noocaasi waa fikir aan waxba ka jirin weey security wuu joogaa oo gacanta waxa ku haya ciidanka Jubbaland baa ku haya maamulkii gobolka iyo kii degmadana way joogaan amisom oo taageeraysa ciidanka Jubbaland way joogtaa marka waxaan moodaa arrintaas inay hadda soo afjarantay waxaan rajaynaynaa hay'aduhu sida ay uga shaqeynayaan Kismaayo in ay Badhaadhe iyo Afmadow iyo nawaaxigooda inay xoog saaraan in aysan noqonin Badhaadhe Kismaayo inaysan noqonin meel shimbir marab inaysan noqonin shimbir marab waxa weeyaan meesha marabku shimbirada ay ku wareegto inaysan noqonin Badhaadhe Afmadow Kismaayo iyo labada degmo ee la xoreyn doono shantuba inay helaan equal opportunity inay helaan xuquuq siman hay'adaha waxa weeyaan ma aha inay Kismaayo kaliya yimaadaan wixii projectaya markay ay la yimaadaan annaga ayaa u qaybin doona hadii la yiraahdo halkan Badhaadhe ay ku fiican tahay halkan Afmadow ay ku fiican tahay halkan Kismaayo ku fiican tahay halkan Xagar bay ku fiican tahay halkan waxa ku fiican tahay jawaab fikirku waa inuu annaga naga yimaado maamulku inuu ka yimaado maamulkuna uu ka dhageysto shacabka iyo community inuu ka dhageysto hay'aduhu ma aha fikir ayaga ka yimid iyo wax ayagu ay ka yimid in ayagu ay keenaan ma taban donorski haddii ay wax bixinayaan annaga fikirka iskale annaga wakiilka ah community iyo shacabka annaga wakiilka ayaan leenahay marka saas aan leenahay aad baan u rajaynayaa in arrintaas diyaar garowga disasterka la saadaaliyay soo socda in laado oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo maalgeliyo loo caawimo hay'adaha localka iyo maamulka labadaba maamulka iyo hay'aduhuna waxa weeyaan kuwa isku xiran oo wada shaqeynaya si marka ay noogu fududaato inaysan wixii ku talagaleen ee mucaawina in ay soo dedejiyaan baan rajaynaynaa